asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janaalka mar kale soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda amaba waalidiinta da'da yar ee hadda ilmaha dhalay amaba kuwa laga yaabo inay dhawaan dhalaan arrin ku saabsan oo dawladda ka soo baxday ayaa raba inaan la socodsiiyo iyo sidoo kale nin iyo xaaskiisa arrin la yaab leh lagu soo xiray oo haddii aad maqashaan adinku aad la yaabi doontaan balse marka hore aan ku bilaabo maalmahan commentiga waxa aad ugu soo badatay group 5 ka soo hadal group 5 ka soo hadal Soomaalidu waxaan u maleynayaa runta ma jeclo beenta ay jecel yihiin group 5 waxba kama soo kordhin wali wajigii labaad ma uusan furmin sidii ayaa looga warsugayaa welcome Cobs team dhamaadka sanadka ayuu furmaya ayay dhaheen ilaa haddana waa furmay wajigii labaad lagama hayo marka haddii aad been rabtaan meelo kale u raadsada aniga war been ah waa la furay waa la furi raba ah idima dhahayo warku marka uu soo baxo oo welcome Cobs team ay ku dhawaaqaan oo la yiraahdo wajigii labaad waa la furay waa idin la socodsiin doona aniga ayaa jecel wixii war oo muhiim ah inaad la socodsiiyo laakiin haddii aad been rabtaan waxaan filayaa meelo kale oo beenaha laga sheego waad ka raadsan kartaan laakiin aniga been iguma imaanaysaan hadda waxa kaliya oo la sii qaban karo waxay tahay shantii qof inay sii raadsadaan waliba meel isla jooga tababarkiina ay sii qaataan training oo mid kamid ah qaato haddii shantooda oo qaatana kaba sii fiican labadaasi arrin ayay arrintu u dambeysay wax kale oo ka soo kordhay ma jiraan wali lama oga xilliga uu furmi doono sida adinku aad u sugaysaan ayaan anna u sugaya marka uu war ka soo kordho haddii alleedna waa idila soo socodsiin doonaa laakiin wax been ah ma raba aniga inaan dadka igu xiran aan la wadaago beenna la igama baran runta ayaa la iga bartay marka iska suga marka uu furmo haddii aan leedmo aniga ayaa idila socodsiin doona arrintaasi halkaas ayaan kaga gudbo sheeko la yaab leh qof ayaa la soo xiray marka aad maqasho waxaa maskaxdaada ku soo dhacayo qofkaasi ma qof buu dilay ma meel buu dhacay muxuu sameeyey laakiin ka waran qof loo soo xiray qof meyd ahaa inuu dhibaato u geystay arrintan waa arrin la yaab leh arrintan waxay ka dhacday Colorado meeshii ay ka soo bilaabatay ayaan rabaa inaan idin la wadaago funeral homeska waa taqaanaan dadka Mareykanka ku nool oo qofku marka uu geeriyoodo oo la soo xaqiijiyo dawladdu qofkan sababtii uu dhintay waxa la geeyaa funeral homeka ka bacdi waa inta badan waa dadkan ajnabiga oo aan la noolnahay anaga muslimiinteena dadka masaajidka ayaan keenaa waa ku tukanaa kadibna sida diinta islaamka ay qabta ayaan u soo aasnaa laakiin iyagu waxay geeyaan funeral homeka halkaasi dadka qaarkoodna dadkooda caadi ayay u aasaan kuwana waa ay gubaan marka kan waxa uu ahaa funeral homekan oo gurigan aaska waxa uu ahaa mid dadka lagu gubo waxa uu ku yilay Colorado gobolka la yiraahdo gaar ahaan Colorado Springs marka Penrose magaalo la yiraahdo ayuu ku yilay saddexdii bishii October hadda bishii dhamaatay ayaa dadka ka ag dhawaa meeshaasi aaska waxay la joogi waayeen urka ka soo baxaya meeshaasi booliska ayay waxay yiraahdeen waa u adkaysan la'anahay meeshan ur aan caadi ahayn ayaa ka soo baxaya waa saddexdii bishii October ee dhamaatay boolisku afartii bishi ayay tageen afartii bishi markii la furay meeshii waxa loogu tagay wax lala yaabay ninkan meesha iska lahaa marka loo keeno qofkan meydka halkii uu gubi lahaa maba uusan gubine halkaasi ayuu meydka risaynayay oo isdul saarayay waxa markii hore loo maleynayay 155 qof oo meyd ah inay meesha ku jiraan laakiin markii ciidamada ku takhasusay baaritaankan oo oxygen urka meesha lama geli karo oo dhar loo geliyay loogu talagalay oxygen loo xiray 190 meyd ah ayaa loogu tagay funeral homeki arrintaas wax lala yaabo ayay noqotay baaritaankii marka meydkii in la soo daabulo meeshii laga soo saaro ilaa iyo bartamihii bishii ayay qaadatay ninkii marka meesha iska lahaa iyo xaaskiisii markii arrintii baaritaanku bilaabmay teleefankoodii inta ay dansadeen ayay ka carareen Colorado waxaana arbacadii hadda laga soo qabtay ninkan la yiraahdo John Harford iyo xaaskiisa guriga waalidiintiis ay leeyihiin oo ku yaala Wagner County oo Oklahoma ayaa laga soo qabto FBI-da ay ka soo qabteen marka ninkan dadka marka loo geeyo maba uusan gubi jirin dadka meheladooda meydkan waxa uu siin jiray dambas beena dambas ayay qaataan sida filmaanta hindiga dadka daawan jiray webiga ama badda ay ku shubaan qaarna guriga ayay iska dhigtaan dambasta intay meel ku shubaan qaar kamid ah ehelkii waxay leeyihiin dambastan aan muddo 4 sano aan haysanay dadkeenni maba ahaynba marka dambas beena ayuu siin jiray meydkan halkaasi ayuu isku risayn jiray waa uu ka tagi jiray meydkan waa uu baaba'ay kulligiis waxyaabaha laga aqoonsan kara waxay tahay ilkihii oo kaliya hadda waxa ay ciidamada baariyaashu ay sheegeen in 190 kaasi qof 110 kamid ah la xaqiijiyay oo ehelkoodii ay xaqiijiyeen marka dhakhtarkii ilkaha ay aadi jireen in la tago oo laga soo xaqiijiyo ay noqotay ilaa hadda marka 80 ayaana wali la xaqiijin oo eheladoodii aan la ogaanin marka dacwadoodayaashu waxay leeyihiin waa inaad tagtaan dental clinic ama dhakhtarkii ilkaha ay tagi jireen balse dadkan inay dadkii yihiin loo ogaado because dadkan waa ay dhamaadeen waa ureen ayaga dhanba waa qurmeen marka madaxii iyo lafihii iyo ilkihii oo kaliya ayaa la aqoonsan karaa madaxii oo waliba lafa
marka ninkan iyo xaaskiisa oo la yiraahdo John iyo Kerry waxaa lagu soo oogay 190 dambi oo ah in ay xadgudub u geysteen dad mayd ah. waa 4 dambi oo kala duwan ayaa lagu soo oogay. xatooyo, in ay been abuur sameeyeen, dadkan lacagta waa ay ka qaadanayeen kabacdina waxay dhahayeen meydkiina waa gubna dambastiina waana been meydka halkaas ayay ku risaynayeen, iyo sidoo kale lacagay isdabamarin dadkan lacagihiina ka qaateen. kabacdi telefonkii ayay dansadeen, waa ay carareen. Arbacadii ayaa lasoo qabtay. waxaa la yidhi hadda waxaa lagu sii dayn karaa mid kastaba $2 milyan oo cash ah oo damaanad ah ayaa lagu sii dayn karaa. marka hadda waxay ku weli joogaan Oklahoma, waxaa dib loogu soo celin doonaa Colorado si halkaasi loogu maxkamadeeyo. markaas dadkan waxaa la leeyahay waxay ku xadgudbeen maydkaasi iyo dambiyadaasi kale ayaa lagu eedeynaya. marka arrintaasi waxay noqotay arrin aad loola yaabay. dadkii meesha deganaa, dadkii ehelkoodii maydkooda meesha lagu arkay, waxay noqotay arrintaasi arrin dadkii fajacisa ku noqotay. aniga nafteedu xitaa weli ma aanan arkin. marka waxaa la jihdi jiray goobtan aaska Return to Nature Funeral Home ayaa la dhahayay. marka hadda maxkamad sugayaal waaye, dib ayaa loogu soo celin doonaa Colorado si halkaasi dambigooda loogu qaado. arrintaasi waa iga yaabis, adinkan waxaan filayaa inay idinka yaabin doonto. dhinaca kale, waalidiinta Mareykanka ku nool ee hadda ilmaha dhalay yar haysta ama kuwa hadda caloosha ku sida oo laga yaabo inay dhowaan dhalaan ama mustaqbalkaba digniintan la socda. arrintan waa arrin muhiima. guddi waxaa jira la yiraahdo Consumer Product Safety Commission oo loo soo gaabiyo CPSC. waxay qaabilsan yihiin waxyaabaha la soo saaro inay xaqiijiyaan in dadka waxyaabaha loo soo saaray inaysan khatar ku ahayn. marka waxaa la ogaaday hadda muddo 12 sano ah in caruur ay ku geeriyaan ilaa iyo sanadkii 2010 ilaa iyo 2022 79 caruur ah ayaa waxay ku geeriyoodeen sariirahan yariiska ah ee caruurtu marka ay dhashaan ilaa iyo 1 sano ay gaaraan loo dhigo. sariirtooda weyn ee lagu seexinaya ma ahan tan, marka meelaha fadhiga iyo marka ilmuhu ay soo jeedaan lagu seexiyo ayaa lagu arkay in 79 caruur ay ku geeriyoodeen. sidoo kalena goobaha la geeyo caruurta la geeyo oo lagu hayo daykeerada marka ay da'da yar yihiin ayaa sidoo kale ay jiraan caruur kale oo halkaasi kula geeriyootay. marka waxaa la yiraahdaa laundries iyo sidoo kale barkimaha caruurta madaxa loo dhigo marka halkaasi lagu seexinayo ayaa digniinta laga soo saaray. horey waxaa jirtay sanadkii hore in dhammaanba dukaamadii iibinaya la yiri ka dajiya shelfiska ama iskafaalooyinka maadaama khatartaasi lagu arkay. haddana waxa ay ku dhawaaqeen guddigan la yiraahdo Consumer Product Safety Commission in isbedel ay soo jeediyeen lagu sameeyo dhammaanba qalabkaasi caruurta da'da yar lagu seexiyo. marka waxay leeyihiin talooyin badan ayay soo saareen. marka waxay leeyihiin caruurtu marka aad ku seexiso oo kale haddii ay isgadiyaan ama barkin ay u taal ama busto uu ku agdhow yahay, canugu waxyaabahaasi ayuu intuu dhinac isku gadiyo ayuu ku neef qabatama ama ku caburmi karaa daqiiqada yar ayuuna ku geeriyoon karaa. marka talooyinkan ay soo jeediyeen ayaa waxay yihiin talooyin muhiima. marka waalidiinta talooyinkan si fiican u dhageysta. waxaana la filayaa 29 bishan inay kulmaan oo talooyinkaasi ay xaqiijiyaan isla markaana qalinka ay ku duugaan si talooyinkaasi ay u noqdaan kuwa sharci ah. marka waxaa la leeyahay ilmahaadu marka ay soo jeedaan oo kaliya ku seexi sariirahan yariiska ah oo laundrieska la yiraahdo. haddii ilmuhu ay seexdaan waxaa la leeyahay ilmahaasi waa inaad ka qaadaa oo sariirtooda caadiga ah hadgeysaa. inta ay soo jeedaan ku ilaali, hana ka agdheeraanin because daqiiqada yar ayaa ilmahan inta uu isgadiyo oo caburmi karaa isla markaana uu ku geeriyoon karaa. marka ilmuhu marka ay soo jeedaan oo kaliya isticmaal, agtoodana joog, ha ka dheeraanin, iyadoo sidoo kalena xilliga ay soo jeedaan oo kaliya inaad isticmaasho loo ogol yahay. ilmuhu haddii ay hurdaan ka bixi ayaa lagu leeyahay. sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaad ku geysaa meel aan dagaandag ahayn amaba sariirta. waxaa sidoo kale la ogoleen meesha fadhiga oo kale inaad inta dul saarto aad ilmaha ku seexiso because ilmuhu waa uu ka dhici karaa. ilmo badan ayaa dhacay oo ku dhaawacmay. sidoo kale arrimahaasi ayaa laga digayaa. waxaana la leeyahay ilmuhu marka uu hurdo ka saar isla markaana sariirtooda caadiga ah gey. inta ay soo jeedaanna ilmaha dhabar u seexi iyagoo wejigoodu oo kor fiirinayo dhinacaasi dhabarka inaad ugu seexiso ayaa la ogol yahay. marka talooyinkaasi ayaa la soo jeediyey waalidiinta hadda dhalay, kuwa hadda laga yaabo inay dhowaan umulaan oo caruurta da'da yar hadduu alla siiyo heli doona. digniinahaasi ayaa la soo saaray. marka ka fogaada because hadda talooyinka ay soo jeedeen waxaa ka mid ah sariirahan maadaama aragtaan hadda inay xoogaa kala fidsan yihiin oo ilmuhu isku gedgedin karo in tan yariiska oo ilmaha la eg marka dhabar loo seexin oo dhinacna isku gedin kareen in laga dhigo oo la bedelo designka ayay soo jeediyeen. isla markaana waxaa la filayaa 29 bishan marka ay kulmaan in la ansixiyo. marka digniinahaasi ayaa soo baxaya
ka digtoonaada marka waalidiinta ilmuhu inta ay soo jeedaan oo kaliya ayaa la ogol yahay inaad ku seexisaan. haddii ay hurdaan waa inaad ka qaadaan oo sariirtooda aad geysaan, isla markaana aad la joogtaan inta ay soo jeedaan. ilmuhu haddii hurdaanna ka bixiya ayaa la leeyahay. marka digniintaasi waalidiinta ayaan rabay inaan la socodsiiyo. aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idinla sida iyo nabadgelyo.